gobolka Gedo weli waxaa ka soconaya isu baritamasho xoogan oo ay dhinacyadu sameynayaan iyo abaabul xoogan. Jubbaland waxa ay soo saartay war-saxaafadeed xoogan kaasi oo ay ku cambaaraynayso warqadii ka soo baxday Villa Soomaaliya kaasi oo guud ahaanba ay isaga baryeeshay dagaalkii dhawaan ka dhacay gudaha gobolka Gedo. Soo dhow daawaday hadday tahay markaaga kuugu horeysay ayaa soo booqato halkan subscribe noo saar noon like garee muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya arrimaha quseeya gobolka Gedo waxaana la tilmaamayaa in dhinac waliba uu dadaal xoogani ku bixinayo sidii ay gacantiisa u gali lahayd gobolka Gedo. Jubbaland oo war-saxaafadeed ka soo saartay guud ahaanba warqadii xalay ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee markaasi uu isaga fogeeyay dagaalkii dhawaan ka dhacay degmada Balad Xawe ee gobolka Gedo isla markaana ay fooda isku dareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Jubbaland dhankoodu waxa ay sheegeen in warqadaasi ay tahay mid lagu marin habaabinayo abaabulka xoogan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu ay ka wadaan gobolka Gedo isla markaana ay uga xusulduubayaan inay burburiyaan guud ahaanba maamul jira oo guud ahaanba laga aqoonsan yahay dunida. Waxaana ay sheegeen in guud ahaanba ay qaadi doonaan tallaabooyin ay uga hortagayaan waxa ay uga yeereen guud ahaanba kacdoonka ka bilowday gobolka Gedo isla markaana ka dhankahi maamulka Jubbaland. waxaana hoosta looga xariiqay warqadaasi in guud ahaanba ay sameynayaan abaabul waliba oo ay uga hortagayaan dhismaha maamulka cusub ee ay dowladda federaalka Soomaaliya uga yeertay inay ka dhisayso gudaha Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo. waxaa la tilmaamayaa in dowladda federaalka Soomaaliya warqadii ka soo baxday dhinacyo kala duwan ay taabanaysay. mucaaradku waxa ay sheegeen tallaabadaasi inay tahay mid culus isla markaana aan loo qaataynahayn xilligeedana aanan ku soo aadin. madaxweynuhu waxa ay sheegeen inuu guud ahaanba iska maaweelinayo guud ahaan wixii ka dhacay gobolka Gedo isla markaana dhex maray Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaa la tilmaamayaa in Jubbaland markan ay qorsheynayso istiraatiijiyad dagaal oo hor leh kaasi oo ay ku howlgalayso waxaana saldhig looga dhigayaa magaalada Doolow ee gobolka Gedo halkaasi oo la tilmaamayo inay ku sugan yihiin saraakiil taabacsan maamulka Jubbaland. walow wararka qaar aynu helayno ay tilmaamayaan ciidamadii ku sugnaa duleedka magaalada Balad Xawe ee dhawaan wararka lagu qaaday inay aagaasi isaga bixeen isla markaana ay isugu tageen gudaha magaalada Doolow. waxaa la tilmaamayaa in markan ay sameynayaan abaabul kale iyo dib u gurasho kale oo xoogan taasi oo mar kale ay doonayaan inay dib ugu laabtaan deegaanada markaasi laga faramaroojiyay oo ay ka mid tahay magaalada Balad Xawe ee gobolkaasi Gedo oo dhacda xuduudda. waxaa la tilmaamayaa in sidoo kale madoobe uu abaabul sameynayo kuwaasi uu guud ahaanba wadamada dariska uga dalbanayo inay ka caawiyaan guud ahaanba dagaalkan ay kula jiraan dowladda dhexe ee Soomaaliya. walow dowladdu ay iska fogeysay isla markaana xafiiska madaxweynuhu u beeniyay inay dagaalkaasi ku lug leeyihiin waxayna uga baaqeen in guud ahaanba dagaalkaasi la hakiyo si shuruud la'aan. waxaa kale oo arrintu ka dartay ka gadaal markii ay warqada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda lagu sheegay inay dib ugu soo laabteen ciidamadii u galay dhinacaasi iyo Kenya taasi oo ay Jubbaland ku micnaysay inay tahay in ay dowladdu iyada warkeeda burinaysa ayna ku cadaynaysa warqadii ay soo saartay in ciidamada iyagu ay dagaal la galeen isla markaana ay la dirreen kuwa Jubbaland ee ku sugan gudaha gobolka Gedo. waxaa la tilmaamayaa in arrintu ay wajiyo kala duwan leedahay dhinacyo siyaasadeed oo kala duwan oo wajiyo kala duwan leh ayaa la tilmaamayaa in arrintan ay ku lug leeyihiin. dowladda federaalka Soomaaliya dhankeedu waxaa la tilmaamayaa in si hoose arrintan ay u wado waxaa soo hogaaminaya taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. dhanka Jubbalandna waxaa la tilmaamayaa in madaxweyne ku-xigeenka tallaabadan uu horkacayo. Jubbaland waxa ay wacad ku martay in guud ahaanba ay hor istaagi doonaan waxa laga yegleelayo gobolka Gedo ee ay maamul ugu yeertay dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxayna sheegeen in guud ahaanba ay ka hortagayaan ciidamana ay u diyaarinayaan sidii markaasi looga hortagi lahaa in Jubbaland la kala jibiyo isla markaana laba garab loo kala dhigo sida markaasi lagu sheegay war-saxaafadeedkan Jubbaland ka soo baxay. madaxweyne Maxamuud Sayid Aadan oo dhankiisa tallaabadan ka hadlay waxa uu sheegay in aanan loo qaataynahayn wixii ka dhacay gobolka Gedo ayna markan dib isu abaabulayaan. waxa uu sheegay warqadii ka soo baxday dowladdu inay tahay meel ku dhac xoogan oo sharafta ciidamada lagu bahdilayo. waxaa kale uu sheegay in ay qaadi doonaan tallaabooyin markaasi
uu uga yeeray kuba dheeri ah oo ka tarjumaya guud ahaanba inay ka hortagaan dhaqdhaqaaq waliba oo lagu dhisayo maamul cusub kaasi oo laga yeglanayo gobolkaasi Gedo. Dowladaha Kenya iyo Itoobiya ayaa qorshahan ku lug leh, waxaana la tilmaamayaa inay isku dayayaan in mar kale ay soo abaabulaan maamulka Jubbaland. Ila kale ayaa waxa ay tilmaamayaan in dowladda Sultanka Imaaraadka Carabta dabaabaad dagaal, hub iyo saanad ciidan iyo raashin ay ka soo dejisay magaalada Kismaayo, taasi oo guud ahaanba lagu taageerayo ciidamada Jubbaland ka gadaal markii uu gacan haatiyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Madoobe ka gadaal markii Jubbaland dagaal xoogani uu ka dhacay isla markaana u dhaxeeya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland. waxaase la tilmaamayaa in guud ahaanba ciidamada Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo qaybahooda kala duwan in laga soo xulayo ciidamo tirabeel ah kuwaasi oo la geynayo gudaha Dolow, diyaaradna looga soo qaadayo halkaasi. sanada ciidan iyo hubkaasi ayaana saldhig looga dhigi doonaa magaalada Dolow, waxaana hogaamin doona Maxamuud Sayid Aadan sida ay tilmaamayaan ila dhaxalgal ah oo ka tirsan madaxtooyada Jubbaland. ilahan ayaa sidoo kale dadka soo dusinaya waxa ay ku waramayaan in guud ahaanba ay sidoo kale Kenya iyo Itoobiya aysan ka marnayn dagaalka, ayna sidoo kale xogo sirdoon kale ay tilmaamayaan in guud ahaanba iyaguna hub iyo saanad ciidan kale ay u gacan gelinayaan. Isbiratumasho xoogan ayaana gobolka ka jirta, waxaana maangala saacadaas oo aadan in dhinacyadu ay soo saaraan haddii aanan la helin xal kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadanaysa go'aankii iyo warqadii ay dhowaan soo saartay iyo qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku gudagalaysa dhismaha maamulka cusub ee Jubbaland kaasi oo laga yeglanayo gudaha magaalada Garbahare ee gobolkaasi Gedo. gobolka Gedo waxa uu dhibana u yahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. shacabkuna waxa ay siyaabooyin kala duwan ay uga andacoonayaan in guud ahaanba dowladdu waliba ee timaada muddooyinkii ugu dambeeyay ay saldhig ka samaysanayso gudaha gobolka Gedo, isla markaana shacabka deegaanka lagu dul dagaalamayo. lama soo xiisadan iyo abaabulkan ka soconaya gobolka Gedo iyo halka uu saldhigan doono.